Soomaali waan salaamaya meel kasta dunida joogtaanba maanta waxaan rabaa saddex topic inaan ka hadlo waxaan rabaa inaan taageero madaxweyne Xasan Sheekh iyo qadiyada Soomaaliyeed halka uu taagan yahay iyo sida uu wado inaan ku taageero waa koow waxa kale oo rabaa inaan u jawaabo boqorka dibad wareega ee boqor buur madow hadalka soo yeeray oo munaafaqad ahaa oo isku diraya beesha Ciise iyo beesha Samaroon inaan si cad ugu jawaabana waan rabaa isaga waxaan kale oo rabaa inaan codsi u diro madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo ka codsado oo u sheego in maanta abtiyaashi iyo adeeradii ay wada socdaan oo gacmaha isqabsadeen oo gacantaadana u baahan yihiin taageeradaadana u baahan yihiin Marshall Aid ay ka rabaan maanta Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh waxaan ku taageersanahay hadalkiisa meesha uu istaagay mowqifkiisa halka uu joogo meel ka fog bay Soomaali waliba doonaysaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay meelaha qaar kood markaad ka hadlayso ee leedahay aniga iyo Ethiopia ma wada hadli karno absolutely right waanu ku garab joognaa waxaan Xasan Sheekhow anigu aan rumaysanahay masiibadan inagu habsatay ee Ethiopia inaga timid inay ka timiday dagaalkii Laascaano xasuuqi halka ka dhacay genocide kale ka dhacay dadkii halka lagu baabiyay waxa lagu dilayay magac Soomaaliyeed waxa lagu dilayay calan Soomaaliyeed dawladdaadana mas'uul ka ahayd kama aysan qaadan position-keedii kama aysan qaadan haddii ay position-ka maanta aad qaadatay toonka maanta aad ku hadlayso aad u hadli lahayd xasuuqaana ma dhaceen guryuhuna ma burbureen dadkuna ma dhinteen wax badan baad badbaadin lahayd marka waxaan leeyahay waxa weeyaan waa banishment rabbaani waxa Soomaali ku dhacay waa dambigii ay galeen ay ku daawanayeen dhibaatadii halka lagu hayay ee dadka loogu soo duulay ethnically loo baabiinayay ee calanka Soomaaliyeed lagu dilay waxa lahayd heshiiyaan ma ahayna awoodda dawladeed baa exercise garan lahayd oo dadka waa la garab istaagi lahaa marka waxaan leeyahay dambigii baa la nagu cadaabaya aniga waa sida ila muuqato dambiga halka ka dhacay ee kuwii waxa suuqay ee genocide ka geystay ad waliba haddana wada hadal la gashay ee dambiilayaasha ay ahayd inaad soo taagto maxkamad caalamiya in la soo taago dadkii dambiga galay ee genocide ka geeyay ee waxa suuqay oo joogan oo garanayso 94 kiina saa waxa suuqay ee ina biixi iyo ina kaahin iyo musabi maxay odagi Saleyman Gaale kamid yihiin ragga in maxkamad la soo taagay oo macati hore aad ku soo taagto ayahay marka dambigii halka ka dhacay dadkii daawanayay ee wax ka qaban karaayay iyo Soomaaliba waa dhibaatada maanta ay haysat saasan anigu u maleynaya dalkan Ethiopia dhulka Soomaaliyeed gumaysanayso gift baa loo siiyay hadiyad baa loo siiyay Ingiriiska gift u bixiyay dhulkeena hadiyad buu siiyay wuxuu dagaalkii labaad ee dunida ay ila galeen Soomaalidu marka gift baan u siinaya calanka SYL wuxuu ka taagnaa Diridhabe wuxuu ka taagnaa Aisha reserve area markii in cigaal ku wareejiyay ee u sharciyay ee uu ka dhigay dal iyagu ay leeyihiin dadkii Soomaaliyeed ee dhulka diidanaa ee xornimada doonayay calanka Soomaaliyeed way xasuuqday xabashidu way xasuuqeen axmaaradu magaalada Aisha 5,000 oo qof baa god ku jira 5,000 oo qof oo Soomaaliya god ku wada jira loona xasuuqay calankii SYL wadalkeeni Ingiriisna gifti uu bixiyay ina saaqna gifti uu ina cigaalna gifti uu ugu daray maantana gifti baanu bixiyay musabbix dhulkayagi iyaan gifti uu bixiyay maanta modern society-ga maanta ee qof walba arkayo qofka dambi galay awr gifti baan bixiyay oo waxa siisanaya aqoonsi reerka iyagu helaan kuwa kale waxba igama galin wadiga arkay dambi bay tahay marka waa dambi dadka laga galay iyaan u maleynaya anigu takale ninka la yiraahdo buur madow boqorka dibad wareegay buur madow la yiraahdo hadalkaagu munaafaqad buu ahaa afminshaarne buu ahaa reerkan wada degan Ciise Samaroon baa isku diraysay laakiin waa inaad ogaataa wixii loo kale dhexdayada waanu ka heshiinay aniga leh baan isku haysanay local bay ahayd maanta qadiyadu local way ka weyntahay
samaroon iyo ciise ood bay wadaagaan oodina ab ka dhow waa ehel waa qaraabo waa family waa dad isdhala waa dad wada degan waa dad isku qadiyada marka markii la isku diraayay maaha waad qasaartay munaafaqad bay hadalkaagu Somaliland talaad sheegaysana tu idinku aad leedihiin weey to anagu waan la leenahay ma waa tu idinku aad leedihiin dhulkan la bixiyana ma leedin idinku dadkii la waa kuwa ka dagaalamay waa kuwa mudaaraday waa anaga ciidanka ku haya boorama ee caburinaya de Soomaalidu waxay tiraahdaa sidikto daad kama taloodo odogtay waa af Soomaali wageel la wad leedahay waxay de iyagu mudaaraadayaan waa dhulkoodii waxaad bixinaysaan aad ku gorgortamaysaan idinku kuma jirtaan waa anaga shacabka tumaya musabbixi baa dhul soo iibiye aqoonsi lagu bedelayaa waa anaga idinku sidaale laakiin ninkii lahaa ma ogola been baad sheeganaysaan maamul beeleed baad tihiin reer baad tihiin beel ah dadka kale waxba idinkama gelin taasaa cadaynaysa laakiin ninkii lahaa waa diiday cabdiqani isagoo wasiir ayuu iskaga dhaqaaqay uu anigu dhulkayga oo la iibinayo ma daawan karayo dadkayga ayaan la dareenahay wasiir kale oo samaroon isaas sameeyay oo dadkayga aan la dareenahay dadkuwii damiirka lahaa dadkaasay la dareenyihiin laakiin waxa idinku hadhay waa kuwii autistiga ahaa kuwii doqma ahaa ee afka cadaynayay baa idinku hadhay house nagareski kuwaan u bixiyay qoora saraax amba horgalayaashii baa idinla jooga laakiin qof damiir leh oo sharaf leh oo karaamad leh oo dadnimo leh dhulkiisii oo lagu gorgortamayo oo reer kale bixinayo waliba inuu ku faraxsanaado waa dayuusnimo inuu ku faraxsanaado kaasa deydinla joogay ninka laakiin dadkaas lama joogaan dawlad baan samaysanaynaa isna dili mayno wixii hore waan ka weynaan haddaad bari hore sugaa dirteen maanta wixii waxba kama jiraan waxaas wax ka jira ma musabbixi baad ku soo isticmaalay adiga waa tools baad tahay waxa rabta Hargeysa inaad timaado oo lagu soo dhaweey waayo saddex reer baad deesaaq saddex reer waaweyn habar jecelo habar awal iyo garxaajis hadaad maqasho gobonnimo halkaas ay taala gobonnimo Soomaalinimo halkaas ay taala dagaalkii xasuuqii ka dhacay la asxaabna way diidanaayeen habar jecelo waa tools kalmad kale oo ka fiican baa jirta laakiin waa ka xishoonay ma oran karo waa tools la isticmaalo oo habar wala isticmaasho way dagaalkii 94kiina tools baad haydeen maantana sidaas tools u tuun habar waa aggression weeyaan marka adigu tools baad tahay adigu qadiyad ma lihid qadiyad iyo go'aan iyo tolomidna toona ma lihid wixii lagu yiraahdo ayaad aqbalaysaa reer baa ku isticmaalaya adigu marka inaad tiraahdo ciisiya samaroon isku dirtid wax ku shaqeynaya ma sheekadaasi way fashilantay waxaan ku arkaynaa inaad hayd munaafiq inaad hayd afbinshaar labada reerno isku dira doonayo laakiin labadaas eel iyo qaraabay noqdeen waxa kale oo rabaa madaxweyne Ismaaciil Margeelo maanta abtiga iyo adeerka waa one love waa one family waa one nation meel bay wada leeyihiin dhul bay wada leeyihiin deegaanka ka dhaxeeya tolnimada ka dhaxaysa dhiig baa ka dhaxeeya ehelnima ka dhaxaysa dulmi bay diidayaan sidii SNMtu markay soo gashay Somaliland soo gashay adu gacan qabatay u gacan qabo maanta gacantaada u baahan yihiin torka iyo abtiyaasha maanta iyagu gacmaha haysta adiga ay ku baahan yihiin waxay kaaga baahan yihiin dhaqaale waxay kaaga baahan yihiin siyaasad waxay kaaga baahan yihiin military waxay kaaga baahan wax kasta u baahan yihiin inaad ku garab joogsato maamul baa samaysanaynaa dawlad baa samaysanaynaa labada reer ka kooban waxaan ka hoos baxaynaa maamulkan qabiilaysan ee iyaga cashuura ayaa ka hoos baxaynaa ee dhaqaalaha ka dul sameeya ee lacagta ka sameeya iyaga lacag bay ka sameeyeen qofka meel walba way leedahay border Somaliland meel dadka lacag laga qaada ma jirto oo la wicada ahayn oo la sayl ahayn oo booraba ahayn oo toqoshi ahayn oo dadka bili aadanka la cashuura ma jirto waxay maanta ku dareen inay dad dhulkayga bixiyaan oo raadaan waxa Ethiopia aqoonsi ka siisnay wad arkaysaa Ismaaciil abaal male barina anaga idin iibinayaan la shak عليها
inay beri toolana iibiyaan oo halkaa naga dhoofiyaan haddaanaan maanta diidin beri waan wax dhintaan noqonaynaa haddaad dhimato geeridu marbay nolosha dhaantaa marbay dhaqashiya kaa yihiin dherego xaaraan dhashaaday sugtaa xaajadaa dowrataa abid reer haddaan sugno oon la sii joogno na dulmaaya saasay noqonaysaa cool camuud meel la yidhahdo halkaas isugu ka dhigan jiray meel dadka lagu xereyn jiray baa ku jirta dadka slaveska marka laga dhoofinayo xeebaha Soomaaliya halkaas dadka lagu xereyn jiray slavekii oo rabaan inay naga dhigaan oo annaga iyo dumarkayga iyo carruurteeda halka naga dhoofiyaan bay rabaan gurmad buu marka maanta dadkaagi ka rabaan abtiyaasha gurmad bay ka rabaan tolka gurmad bay ka rabaan dhan walba sidii aad Soomaali u gurmatay eedu gacan qabatay ayaan maanta kaaga fadhinaa ku gacan noo gacan qabato ifka ayaa wax la isku yahay Ismaaciilow madaxweyne ifka wax la isku yahay aakhiro wax la isku maanta waan ku baahana maanta waa maalintaada waan ku baahanahay maamulkayga inaad isgarab taagto ayaanu kugu baahanahay Soomaaliya aad baan idin salaamaya meel kastoo dunida joogtaaba dambigii aan ka galay laascaanood intii daawanaysa awood lahayd Ilaahay naga dhaafo iyo Soomaali intii daawanaysay xasuuqii iyo genocide-kii iyo dilkii iyo baabiintii ummadda ku dhacday een daawanaynay Ilaahay naga dhaafo dambigeeda kuwii sameynaayo uu ku dhacay dambigii laakiin inaga Ilaahay naga dhaafo aad baan idin salaamaya